السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله ما توحى على السويم هل كان أنا كعدنا ما أعرف شعورتنا ذا كأدن قبتانك يدي بتانك أي دولة الصومالية دبيبتي جنرالك الصوماليات قلب دقح وقلوبتنا أدبوا هنا استوى مركز أي ديبان ضد ما أعرف وح مقرتها الصومالية أن مثلي كرن وحام هل كانوا شيء هنا شعب الصومالية أردت أسعد بانوح معني waxaan rabnaa dawladda Soomaaliyeed inaan ka codsano inay ilaaliso sharafta muwaadinka inay maaragtay soo celiso generaalka ummadda Soomaaliyeed sharafteeda u soo halgamayay 40 sano ugu dambeysay isagoo oo maaragtay qof kasta oo Soomaali shucuurtiisa dadka Soomaalida maxay uga dhigantay diibista qalbi dheer wallahi waxaan u maleynayaa waxay uga dhigan tahay qof kasta oo Soomaali shucuurtiisa aad iyo aad u danaqday waxay uga dhigan tahay Soomaali oo dhan oo la dhiibay oo Itoobiya loo gacan galiyay marka anagu wada shacabka Soomaaliyeed marnaba ma qaadanayno arinta maaragtay hadaanu nahay dhalinyaro waanu arintaas waanu ka soo horjeednaa dawladda Soomaaliyeed waxaanu leenahay
markii hore aad baan idinku haweynayn haddeertana waxa weeyaan qalbigeennii ayaad dhaawacdeen marka waxaan leenahay haddaan sida ugu dhaqsaha badan le loo soo celin qalbi dhagax mudaharaadadu ma kala joogsanayaan wuxuuna noqonayaa insha allah generaalkii midayn lahaa ummadda soomaaliyeed markaa dowladda soomaaliyeed waxaanu leenahay aanu ka codsanaynaa inay hadda sida ugu dhaqsaha badan leh ku soo celiyaan generaalkii ay u dhiibeen maaragtay cadowga soo jireenka Itoobiya aqalka sare ee golaha baarlamaanka Soomaaliya shalayto waxa la hor keenay markii horeysay dood in la geliyo waana la diiday waxaana la sheegay in xukuumadda hor istaagtay maxaad arrintaas ka ogtahay wallaahi waxaan leenahay xukuumadda Soomaaliyeed markii hore aad baan ugu hanweynayn waxaanu lahayn waa xukuumaddii ummadda Soomaaliyeed isku midayn lahayd isku soo jiidi lahayd ka badan burburkii Soomaaliya galay laakiin hadda runtii waxaad moodaa inay dowladdani tahay dowlad u shaqaysa Itoobiya mana matali karaan shacabka Soomaaliyeed waxaanu la leenahay haddii aan la soo qabanin dadkii ka dambeeyey faldambiyeedka wuxuushtaa geli doona maaragtay taariikhda Soomaaliyeed baalka mugdiga ka geli doona waxaan leenahay dowladda Soomaaliyeed in ay sida ugu dhaqsaha badan la khaladka u saxdo inayna hor taagin maaragtay shuruucda waddanka inayna maaragtay hor istaagin golayaasha wax ma istaajinayaan wax macnaana ma samaynayso in golayaashii dowladdu ay lahayd ay hor istaagaan arrintanina shucuubta Soomaaliyeed aad bay uga danqatay waana in sida ugu dhaqsaha badan wax looga qabtaa aad iyo aad honor for Somalia. Somalians were all left. We are all Somalis. We are all left. We are all Qalbidaga. waxaan rajaynaa ummadda Soomaaliyeed inay fahamto waxa Itoobiya doonayso waddanka Soomaaliya ku kala qaybiso laakiin nama kala qaybinayso we are all left with Somalis we are brothers Ogaadenia waxurudba Soomaaliya ha israacdo dowladda Soomaaliya farmaajo oo hayso khayra dowladda Soomaaliya ha noolaato dadka Soomaaliyeed ha noolaadeen dhibka dhacayna waa isaga imaanana Soomaaliya ha noolaato وسلامة السلام عليكم عليكم meesha waxaa ka dhacaya mudaharaad ballaaran oo lagaga soo horjeedo gacangelinta ummadda Soomaaliyeed dowladda Soomaaliya u gacangelisay gumaysiga Itoobiya meeshana waxaa ku yaala safaaradda gumaysiga marka waxaa leenahay free qalbi dhagax dadka waa Soomaali community ka timid marka waxay u yimideen inay gudbiyaan oo dowladda Soomaaliya u gudbiyaan wixii ay samaysay faxshirmada ahaa ay ugu dhiibtay Cabdikariim gumaysiga Itoobiya sida Soomaaliya runtii gashay dembi khiyaano qaran ayaa maartay meesha loo taagan yahay oo lagu cadaynaya muwaadin Soomaaliyeed ex-military xoogga Soomaaliyeed gaashaanle dhexe Cabdikariim Sheekh Muuse oo inta lugaha iyo gacmaha ka xidheen ay u dhiibeen cadowga Itoobiya sidaas ayay u taagannahay waana wadaynaa dadka weli soo socdaa aad iyo aad guulayso لايف مكتوب جدا حاجة دي سي لايف جدا مدن عبد العزيز مدة الصومالية داون إثيوبيا صوماليا قول انت حليمو قول حلنا لا ما انت هلكن تاغتاي إثيوبيا أنا تعاير وكاس مدة الصومالية هذا فرقين
waxaan u sheegaynaa dowladda Itoobiya iyo kuwa kaleba dowladda Maraykanka dadka ay ku tartay argagixisada anaa la ii soo diray ninkii doonaya ha isoo weydiiyo ONLF kama mid aha argagixisada adduunka waa freedom fighters u dagaalama xorriyadooda dadka shaqadooda maanta u soo gudbiyey runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa raggii soo agaasumay aad iyo aad baan dhammaantiin idinku mahadcelinaynaa waxaan idin leeyahay insha allah dhammaantiin waa hadli doontaan soomaaliya ha noolaato cadal ku soo dhawaado aad iyo aad ummadda soomaalida waxaan u diraynaa fariin ummaddii soomaaliyeeday Itoobiya idin gubaysatay Itoobiya way idin gubaysatay kuwa horena way gubaysanaysay intii dambena way gubaysanaysaa ee gubaysiga ka dhiidhiya oo ka kaca meesha ummadda soomaaliyeed saasaan leedahay dowladda soomaaliyeed waxaan leeyahay dowladda soomaaliyeeday dadkii waad difaaci weydeen dadkiinniba hoostiinni laga guranayaa waxaydaan aaminsanayn baa afka laydinku tuurayaa waxaan ogahay khayre maxamed farmaajo wasarada wax aaminsan inay ONLF argagixiso tayinsa ku jirin waan ogahay waxaa weeye waxa ku khasbay waxaa weeye waa cadowa laakiin waxaa idinla gudboon inaad ummaddiinna u sheegtaan inaan waxba gacantiina ku jirin waxba gacantiinooguma jiro ee dadii meeshka kacda waxaan xasuustaa maxamed farmaajo maalintii la doortay shir uu qabtay gabadh ka hadashay waxay tiri farmaajo waxba ma qaban kartid waan ku ognahay laakiin maxaa wadannimadaada lagu garanayaa waxaa lagu garanayaa inaad dadka u sheegto inaan waxba gacanta kugu jiro oo tidhahdo wadyahu dadkiina xoraysta iyo dadkiina haddana maanta waxaan leenahay dembiga dowladda Itoobiya leh waxaase ka sii dembi wada kii ummadda u qariya Itoobiya dibadaabyada iyo gumaysigeeda ninka u qariya ayaa Itoobiya ka dembi badnaanaya Itoobiya waa cadow waa ku naxariisan maayo inaad ka daratay ku naxariisana waad ku hongoobaysa laakiin waxaa ka dullaysa qofka fahmi waaya ama u qariya ummadiisa ama cadow soo garabka marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ha jirto waa noolaato isku dummaato arrinta labaad maxay tahay dembiga ummadda Soomaaliyeed waxaa u galay dad ka mida oo Itoobiya u gacan geliyay dowladda Soomaaliyeed shacbiga Soomaaliyeed ku codsanayna ama aan sheegaynaa inay soo bixiyaan bannaanka soo dhigaan dadka dembiilaha ee cadowgalkaadka cadowga u gacan geliyo hebel in loo soo saaro inayna ummadda dib dambe uga sii mid noqon ha u kacaan Itoobiya ninkii u carari ha u carari Itoobiya laakiin inuu Soomaali noqdo caasimada Soomaaliya sii joogo ninkii falkaas sameeyey kuwa cadowa mataqaana ummadda Soomaaliyeed ugu duleeyey xaaraam calayk waa arrin xaaraana shacbiga golaha siineedka waxaan ka codsanaynaa inayna dowladdooda duminin laakiin ay la xisaabtamaan oo dembiilayaalka la soo saaro dowladdoo la dumiyaayo ma noqonayso dembiilaha soo saaridiisa xal ma noqonayso xalku waxaa weeye in dembiilihii la soo saaro waxaan ka codsanaynaa marka dembiilihii si loo soo saaro in dowladda madaxdeeda inay soo saarto iyaga dembiilihii qarya marka haddii ay dembiilaha difaacaan dee iyagiyo dembiilaha isku dembi bay noqonayaan iyagiyo dembiilihii yaa isku mid noqonaya marka dembiilaha iyo ka qaryaaya marka isku xukun bay noqonayaan war shahaado zuuriya la gelina waxaa weeye waxaa wax laga yaqiinsadaa oo 2 goor laga sii yahay cabdikariin sheekh muuse ayaa la dhiibay oo cadow gacanta loo geliyey marka dee naagtii gambada taabatee gacanta loo maydhay ee gelisay meeshii xumeed gabaygu soo maaha markii dambena dee waxay ku hadleen ma ummadda oo dhan wada yaqiinsaday waa la hunqaacay marka aad iyo aad baan runtii uga xunnahay war caanadaa toddobadooda la qabtaa waddoqoni meesha ka tagtay ku noqoshadeeda ceebbay moodda ha noqonina war dib isugu noqda war wax isku fala war mustaqbalkiina mataqaanaa ha ku luminina qadiyaddan ummad baa iskale oo ana lafaa soomaali oo dhan waa qof kasta soomaaliya yani qadiyadu ummadda soomaaliyeed waa ka dhexda qof soomaaliya oo qadiyada lahayn ma jiro aad iyo aad baad mahadsantihiin ummadda soomaaliyeed ha midow Itoobiya ha ka baxday Soomaaliya ha ka baxdo
إثيوبيا كبحوا وبالله توفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. بابور تسكير. السلام يا ضد الصوماليين غير ذا هي وطن النبذة هي جيش النبذة هل كانوا يمين. هذا السلام يا سلام كذب وحاوي على كي صوماليا. الله صومري هل جنكا خطر بوكجرا صوماليين. إثيوبيا أنت إنه شهينا خطر بوكجرا. إثيوبيا أردمتي أو أنشرين. يعني دينكو دولة كان لجيسان. دولة معها إثيوبيا دولة لقبقة معها إثيوبيا إلهي دين أبورتي كبقة إثيوبيا ما جرتو خدات كبقة إنسان إثيوبيا وأنا لفا إذن كغفرا وإذن كعلن وحادي إليسان سلا أوشاقي نكا أضيقها هضلي قبل مدونك أغادينيا دولة الصومالية وما السودان إثيوبيا dembigan oo dhan Itoobiya ka dambaysay laakiin waxa loo baahan yahay geesinimo waxaad ogaataan Ogaadeniya waa Soomaaliyana waa Ogaadeniya arinta ogaada ummadda Soomaaliyeed waa mid qura lamana qaybin karo laakiin waxa loo baahan yahay geesinimo loo baahan yahay waxaad ogaataan hal qof inta uu nool yahay gobolkaas uu halgami xabadiisu isma taagayso 130 sano dagaalka آلاف صوماليا قدمتي وحاوية ما أولانها ينو مجاهدين تي دمتي وحايا هاي أكتشي هاي ما أولان كرو ومجاهدين انت لغا هدي هي أمت انت هذا النور جهاد كاسي قدمانيا أما وارقك حصدا أما ومجاهدين دا دقالكو اسمتها غيو هداد إثيوبيا كبا قيسان أنك هايدين حرين أنك هايدين تاغن إلهي بياضين أبوتي كبقى صومالية ومدى صومالية وحانو شيء واد استاكتين واد ما سنتهين إذن كان صوبحي هلقن كان وضع مثل مضى وضع قبيل وحمترو بيس وحمترو صومالية إنك أضوح كتاي حتى هذه قصته وحلا النقل ميسي ننك الصومالي هو ننك الصومالي هيسن أمت مضى هذا هيسن دينت هذا هيسن dadnimada hada hayasin u taagnaada halgan iyo cadawgan gudaha idin galay saad isaga bixin lahaydeen yani waxa weeye arinta u feejignaada baarlamaanka Soomaaliyeed waxaad yeeshaa adiga ummadantadi sharcigani adiga musharixiintii idinka ah sharciga ummadda Soomaaliyeed u sheega habaqanina xaq sheega dadkii dambigan galay halala tiigsado maxkamad baarlamaanka sare iyo ka dhaxaba hal laga daayo qaska hal laga daayo shaqadiisa sidoo u qabsan lahaa ha guteen waxaad ogaataan ummadda Soomaaliyeed midnimadiina ku adkaysta waligiin iyo alihin cadow talaabadu idinku waday yaad maanta ku socotaan waxa weeye Soomaaliya way jiri Ogaadeniya way jiri ummadda Soomaaliyeedna way jiri midnimaduna way jiri ilaahay baa laga baqaay ha baqina والله وبالله وتالله وإثيوبيا ليلا ما جرتو إثيوبيا وحليلا ما جرتو لباحي كبوبي كل كيسة لقبل يبوي وين متى إثيوبيا وين متى وين كلا تكتي مركا إذنكم هالراعين أسيحوا جننا أنا ونوان الله وانو جرنا وقت وضعن كتما وهذا وقاتل من نمو وقاذا إلهي اسكحنا إلهي اسكحنا دينتين اسكحنا مدينة كوكال صنادة جيس المدينة كوكال صنادة والله أنا تديدين مغرين تديدين ما مغرى سوء عشادة من المدينة بوشي لي سوء عشادة جيس النما اسكر هذه أفضح المولدتا وحاوية من كدوانا يا إسك دمشو أقلادا دمشان أقلاني إذن وانو قارينا إن شاء الله إذن وانو قارينا إن شاء الله زازان إلهي كبر يا إلهي شارك الصباني يادو والما سنتي حمزة كل ما نيدين رجينا يا حمزة شيخ عادي وين اوكي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي عبد الله موسى وعقي من لستر ما أنت واحد سكون من لندن أنا بحن وين إبارة سفارة جميسي هورتيس إثيوبيا هذا عيا أكيد وين إبارة هذا كان لنا وحوي وأرنتي
ay ku dhaqaaqday dowladda Soomaaliya waa dowladda Soomaaliya waxaan ka hadlaynaa waa dowladda Soomaaliya arrinkan waxa sameeyay waa dowladda Soomaaliya waa madaxweynihii waa ra'iisul wasaarihii waxaana shir gudoominaya ra'iisul wasaarihii waa shir gudoominaya arrinka ay sameeyeen waa qadiyadii soo jireenka ahayd ilaa marka xalada Axmed Gurey ilaa yawm hada ilaa saacad qiyaama dhacayso intaan xaq kala baxayna Itoobiya annaga socotay ayay marka xalada daqiiqad gudahood bay badda ku daray cadawga gacanta u galiyay Itoobiya gacanta wax ku kalifayna ma garanay dowladda Soomaaliya shacab bay haysatay way isku duubnayd shacabkii oo dhan baa u soo jeeday maanta laakiin marka xalada shacabkii iyo qarannimadii muraayadii bay jabiyeen yay ka farxiyeen cali way ka farxiyeen yay marka xalada muraayada jabiyeen shacabkoodii iyo qarannimadoodii muraayada jabiyeen arrintan dhacday ee marka xalada Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagaxda waxay ka dhacday bila Soomaaliya waa wada garanaysaa waa malihi way magacaygu waa Rooda Carab waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee Soomaalinimada jecel meel kasta ay joogto waxaan maanta u imid halkan inaan ka hadlo walaalkayga dulman Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax oo ay dowladda Soomaaliya Abasiiniya u gacan gelisay dowladda Itoobiya ee cadawga koowaad ee Soomaaliya u gacan gelisay waxaan rabaa inaan la hadlo madaxweyne Farmaajo maalinkii lagu doortay ummadda Soomaaliyeed farxad ayay la seexan weyday waxaa ku soo haray markaad keentay ra'iisul wasaare Khayre laakiin maanta waxaan idin leeyahay reerkii layni dhaansada aamuhu ka laaya aamuhu ka jajabiya laba qaalin oo buubaad noqoteen ma ogayn ma arkayn dowladda Soomaaliyeed baa idinku aaminay sidayda u tiraadaan maanaan ogayn iyo maanaan arkayn waa nala hoosgeliyay waxaa ku soo haray Sanbalolshe intii safir lagaaga soo dhigay UK iyo boorso wareegaysa ahayd even one room xitaa waa kiraysan weydinta ummadda Soomaaliyeed dhex gasho kartiya awood midna ma lihid waxaan ku leeyahay Sanbalolshe waxaad xusuusan tahay todobadii xaraq xooti ee lagu riday webiga lagu shubaad xusuusan tahay maadan dhiibteen maanta Cabdikariin Sheekh waa ahnin muwaadin oo idinkoo dhan idinka wanaagsan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi waxaan ku leeyahay Cabdikariin waa nin geesi saad maanta ku filan u fadhido bari ugu fadhiisanaya waa muwaadin Soomaaliyeed oo dhiibtay ayna wanaga dowladda Soomaaliyeed maanta tabar lahayn inay dowladdan aan weligeed ku iska celin karin laakiin waxaa la idin karaa warsan iyo hadalka sabwaa ihsaan waa ihsaan hadalka xilli qasal meel bay wada tagaan ra'iisul wasaare Khayre waxaan ka rabaa waa dhiibtay Cabdikariin Sheekh laakiin waxaan kaaga baahanahay maanta in aad boolajays ka bixiso oo aanad waxaad waa argagixiso waa urur Soomaaliyeed oo mucaarada waa xornimadoon waa xaquudir xasan Khayre kursiga adigu ma lida baana malaashaa baarlamaanka Soomaaliyeed waxaan leeyahay bawdada markaan ka jawayo baqanka taageer habeenkiiba way baran lahaa bahalkii cawlaayad bah ilaa goortay dhamaan ugu dulbooyaysa baa sadaysan ay baga ilaahay gaarka ka ogsoon waxaan leeyahay baarlamaanka inta qoslaysaa barnaamijka ku qoslaya waxaan la wareegto inta maanta hadashay buugad ku qorantiin iyo taariikhda Cabdikariin waa muwaadin Soomaaliyeed kii u hiiliyana isaga isu hiiliyay cid kale uma hiilin kii maanta ku qoslaya yiraahdo bagana isaga burna dhiibaya dowladda Itoobiya isaga loo dhiibaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo godka ku jirina ka soo bax ka hadal muwaadinka dhiibtay waxa ku soo haray ra'iisul wasaare Khayre waxaan kaaga baahanahay inaad boolajays ummadda Soomaaliyeed siiso waxa ku goblanaa UK inaan ku caleemo إلينا كوسا دوينا لكن كوسا دوينا مال كساد مدة Soomaaliyeed ay joogto inay calama casadiga ku soo dhaweeyaan maxaa yeelay waa dhagar qabayaal waa dhiig cunayaal waxaan awal laga yaabana ra'iisul wasaarayaasha hore madaxweynayaasha waddanka Soomaaliya baday gateen Allah idinku waxaad gataan muwaadiniinta Soomaaliya waxaad intaan dadkii maxaa ku soo xiga idinka filla Soomaaliya ku jira war ma hayno xamar qayb gata Kismaayo gata Boosaaso gata inaad tiraahdo oo la argagixiso waxaasoo kale 10 lagu soo dhigay waayo oo la fargixisa ma aha boolajays waa inay golaha wasiiradu ka bixiyaan golaha sare wasiiradu waa inay ka bixiyaan waxaad ogtiin ummadii Soomaaliyeed inay gashay marxalad adag oo xasaasi ah waxaad ogtiin Itoobiya inay gashay marxalad adag oo xasaasi ah waxaad ogtiin Itoobiya inay dumayso oo ay gudaheeda iska haysato inay Soomaali maanta badbaadiso oo waliba dawladii qaran ee maanta loo hamweynaa inay u istaagto oo hay hagooma ka dhigto ummadda Soomaaliyeed dabkii kaliya
ee geeska afrikaad ummadda uga baxayeyna lagu sheego argagixiso waa gef wallaahi waxaan ku dhaaranayaa oo billaahi waxaan ku dhaaranayaa inayna sidan sii ahaan doonin adduunku sidaan ahaan maayo maalmaha yaryar ee shacabka laysu tumaya ee aad meesha joogtaan waryaanay idin hodin wallaahi qof walba oo bashara oo dawladda ka mid ah ama hadlay boqolka sano ee soo socda ummadda Soomaaliyeed indhahay ku haysaa nin walbaana wuxuu eedi doonaa ogaabay nin walba wuxuu eedi doonaa wuxuu maanta geysto inaga laba arrimood baa inoo taala inaynu maanta London joogno oo ay ONLF dawladdii Ingiriiska ee ahayd gumaystihii caalamka ugu weynaa uu u aqoonsado gobonnimo doon oo ahaa waddankii qaybiyey ee Itoobiya ku daray Soomaali muslim sheeganaysa ee reer galbeed ay wax soo bareenna ay argagixiso ku sheegtaa waa sharaf dhac waa gaf waa waxaan loo dulqaadan karin baarlamaanka Soomaaliyeed ee biri fariisanayo waa la eegayaa aqalka sare waa la eegayaa Soomaali inta hadda dhaqaaqday ee banaanka timid ee hadashay 500 oo qof ma gaarsiisana ee Itoobiya taageeraysa qof walbaana diiwaan buu noogu jiraa hal maalin qof hadlay qof social media ka hadlay qof idaacad ka hadlay oo aan noo qornayn wallahi buusan waana ku jiro waa leedin eegayaa waa leedin berri waa taariikh laba loo kala baxayo Soomaali iyo Itoobiyaan wayla socotaa baarlamaanka waagu qabtay uu kana khudbaynayay qalbiga ka taageersanaa ilaa qaybka ma ogeyn qalbi dhagax baalintu qabtay qanacday laabtii qisas baa ku soo hadhay ibliis qayb ku leeyahay rabbigay ku soo qayb wuxuu baaqay xashay